qabrigiisa cid quraan ku soo aqrinayso siyaaro u tagayso soo booqanaysa midna ma jirto hadalladii aan xusuusteedii ka go'in waxa kamid ahaa hooyo waxay tiri wiil 30 jir ayaan qolada gediga ka dagaalamaysa u dhalay mid 23 jirna qolada gediga kale ka dagaalamaysa u dhalay labadoodii ninba safka tolkiisu ku jira aniguna magaalada bartamaheedaan meherad ku leeyahay bitir rasaasta labadeeda wiil iyo qoomka ee la kala socdaan ay isdhaafsanayaan way dul marayaan cabar kadib waxaan ku qasbanahay jir in aan wacaanaad hooyo ma nabad qabtaa kana wacaanaad aqoon yahan iyo xogagaalnimadaada maxay tahay sababta dadka Soomaaliyeed intooda badan dabcan dadka aan wajiraan ay u dhiirigeliyaan inay si jirto qabyaaladda loo dhigo aad ama santa Cabdiraxmaan waxaan isleeyahay horta waxa lagu ururi karaa waxna waa furuuc waxna waa asalka moogta asalku waa faham darrorto qofku inuu ku faano wax alla uu san jidin in lagu faano waa faham dar oo dadka haysata qofku inuu fuliyo waxaan alla ka raali ahayn waa faham dar bulshadii iyo wacyigii uu ku dhex jiray oo isu walaalka ahay oo isku duubnaa oo almu'minu lilmu'mini كالبنيان يشد بعضه بعضا ودار رسول صلى الله عليه وسلم قفك مسلم كأه أما مؤمن كلا وعيه دسم عشنا أنتوا فراسة أسود حق اليوم إنه لا دح استجنادين وأسوق جونو بحق كي كلام جونو وجسارة قبيلة دحيسيو أسوق كدجو محمد وراد وين بدنا معنا كفردين وكدجو هرت أصلا فهم درد واحد فهم درد كسكو وحيابها دي رجلنا يوحى كمده أنت بدن ضدكم وحيسن كفير سن waxaan cawaaqibta ay keenayaan nin gabayay yiraahdo lam takhsha aqibata layali walam tastahi fasna ma tashaa hadii aadan wax soo socda oo iman kara aadan ka baqayn aadan xishoonin wax doonta samee marka qof aan xishoonin hadana aan ku xisaabtamin waxa ka iman kara waxaan isaga waxa laga yaabaa mid is hayaan inuu dilay ama dhibaateeyay laakiin midaan la isayna la dhibaateynaya mid quraan dhigay xagga loogu tagi doono warkaas la dili doono mid ceel iska shubanaya ma xoolo iska ilaashanayo reebadiya musaafirkii laga xishoon lahay ama ma taqaana ishaga la karaameyn lahaa oo musaafiraanta lagu karaameyn lahaa baa la dilaya waxa soo idil marka waxay saameyn ku leedahay ay ku leedahay noloshii bani aadamka joogay asaga marka wixii imaan lahayna kama uusan fakirin wixii wacyigii jirayna ma taqaana dhacdadii dib uma fiirin waxa ka imaan kara ma uusan fiirinin waxa hadda uu sameeynaya waa la fududiin waana la fiican yihiin asaga shaydaankiisa un baa isla qurxiyay qofka marka shakhsiga ka hadlay marka shaydaanku qorowga kula qaado hubka kula qaado qofka marka dishana gooniga kaaga baxa waa walwal iyo shalay iyo balaayo dhanba kale ay kugu saaraysa qaybta soo midaas waxyaaba dhiirigelinaya waxa kamid ah bulshadeena oo aan u heelanayn barnaamijkan uu istaaga guud ahaan barnaamijkan uu istaaga bulshada uma heelana dagaalka socda isbitaalka ma taqaana dadka la soo dhooba dhaawacyada iyo mashaakilka iyo waxa la kala daray iyo meydadka wala yaabaysa meelaha qabuuraha la geeyna xitaa fiirday in barnaamijkan qabyaaladu lagu dagaalamo oo san wax sal iyo raad lahayn dadka ku soo dhinta masaajida janaasada inta badan lama geeyo galo fiirso liidnaanta dadkii waxa dareemaysaa marka muslimiinta geeyigaas ku nool laftirkooda inay jusada ama meydkaaga u arkaan wax aan ku dhisnayn aan mudnayn in lagu dukado oo janaasada la keeno oo la qadariyo mostly hadda ma dhahayo de boqolkiiba boqol lama keeno ma ahan aragtayda laakiin inta badan waa ma taqaanaa ishageena gurmashada loo gurmanayo iyo ilaahay ku mas'aad qof caadi markuu dhinto oo qof wanaagsan ka ah deegaanka markuu dhinto qabriga ka istaagan dadku waxa leeyahay deynta lagu lahaa aniga la ii soo raacdo qof dhahay mid kale wuxuu leeyahay ubadkii iyo ilmihii hal booqdo kan dagaalka qabiilka ku soo dhintay waa suurtagal in yar cad fadhiisan in gurigiisa tagto laakiin loo laaban maayo qabrigiisa cid quraan ku soo aqrinayso siyaaro u tagayso soo booqanaysa midna ma jirto waa dhibaato horta waxyaaba marka bulshada fariintooda gaari karto uga degaya waxa kamid ah raadka qabyaalada laga haro wax macna ay hadiisan keenin hal iska daay dacuuha fa innaha mumtir nabi sallallahu alayhi wasallam iska taga waa qurun in nabigiina saas yiraahdo adna daba joogtaa xigmad maaha aqli nin weyn maaha wax aad hadda ma taqaana ishageen adigu inta u fakarto kugu sameynaya tusaale nololeed wanaagsan ma aha aragtida aniga waxaan isku geyn lahaa marka in wax marka soo celceliya oo ma taqaan mar walba dhiirigelinayo su'aashaada ahayd waxa weeyaan faham darradu waa qodob wixii dadkii aan ma taqaana ishagay waxa ka imaanay aysan ku xisaabtamin waa qodob faragelin shisheeye oo iska dhib badan oo ilaahay kuma samadiiday rabta dadkan in Soomaalida fiir waxa laga fikiraa macallinkay Soomaalidu inay dhinac walba ka dabar go'aan oo yaraadaan Soomaalida dad hal abuur badan oo fikir badan oo dhaqdhaqaaq badan lagu sheegaa laakiin fahamka ama fikirka hadda lagu shaqeynayo waa in tirada la yareeyaa fiir dhinac waxa looga diray dagaalka qabiilka wasdilaya
shan furmood lix furmood hal gobol ka furan hadda mudug iyo galguduud marka la soo qabto shan lix furmood laga yaabaa in qabaa'il ay shadanta hadda dagaalka qabiilka waa la furay mid urur waa la furay oo diimihii iyo diinta islaamka iyo dhankooda inta laga soo maro dadkii waxa la samaynayaa wax dabargo ay u egyihiin waa la furay mid jinsi waa la furay oo guurkii aad buu xoogaa arrimihiisa loo farageliyay oo mataqaanaa ay sheegeen waxyaabo fara badan bulshada dacayad lagu dhex furay mid dagaal kale waa la furay oo kufsiga aad loo dhirigeliyay xadgudubyadii markaas gabadhii la kufsanaya waxa la keenay waxay tahay abuurka la dagaalamay xisaabta ku darso in dadkaanu haajiraan oo gabdhuhu ragga nacaan oo Soomaalidu kala go'do ayaga dhan dad liitan noqdaan oo wax ka soo baxa hadii sanadkiiba hadii 10,000 oo qof dhala jirtay sanad soo socda ay dhalato 5,000 sanadka ku xigay 2,000 dhalato sanadka u dambeeyana dadka ay baaba'aan oo la dabar go'o weeyaan dagaalku halka waa ka furay wuxuu kale ka furan yahay dhibaataynta deegaanka lagu hayo tusaale ahaan waxaad maqlaysaa meel hebel la duqeeyay nuclear bama iskaga dhifanayaan waxaad arkaysaa qaraxyadan oo hadda 24 saac dhex jooga Soomaalidu qarax uma baxo beer ku taala laga soo goro goofeeb laga soo goro sadartii marka dadka in la yareeyo oo xadigooda la dhimo oo ayaga dhan la dabar gooyo oo la liido ayaa horta laga shaqeynaa waxyaaba marka dhiirigelinaya waxa kamid faragelintaas shisheeye qodob ay ka tahay dagaalka qabiilka laba beelood markay heshiisay maxaa la iskugu dhifanaa odayaashii saxiixa ayaa joogay maxaa bariyadan dagaalka sii curiyay صح fahmaysa waaba lagu heshiiyay wax kala soo laabtay maxay yihiin oo marka la heshiiyay ma waxa dukumeenti la kala qoran meel la dhigin ma jirto miya oo dis waxyaabaas waxay ku tusaaleynayaan marka in aan la rabin ba dadkaanu inay noolaadaan oo la dabar gooyo hadda fiirday markaad factorieska dadka ku riixaya aad weydiiso waxaan dagaalkan qabiilka inaad joogtaysaan ilaa waa wareysana mogta marka dhex socdo waxay kaaga sheekeynayaan daaqsina dadka isku haynay kulay oo daaqsinka maada geedaha warabsaday roobka mi adigu la tim si qof daaqsin ugu dirto xoolo waa ku wada filan yahay wax walba rasaaqada Allah qoray neef walba iyo qof walba wixii loo qoro cunaya ma kala xad ma jirto marka si kale u weydiiso wuxuu kulay aana qabiil aan isku haysana aana qabiil waa taariikh baanaad oo ma taqaana ay sheegaan wax sal iyo raad mid aan lahayn oo hebel dilay hebel ma ku dhaaran kartaa dil wara xartaan ay tiraad sheekada lagaga sheekeeyay waa ilaan waxyaabahaas marka waxay ku tusaaleynayaan Soomaalidu la dabar goynayo waxyaaba dhiirigelinay ay macalinka mid waxaa jirtay inaad ka qayb qaadatay nabadeynta beelo walaalo ah oo qabiiladaas ay isu geysay marka maxay ahayd markaas aad nabadeynta ka qayb qaadanaysay dhacdooyinkii ama sheekooyinkii kuwa xusuusta badnaa ee aad la kulanto xilligaas Sheekh Cabdiraxmaan aad u mahadsan tahay horta waxyaabaha qaar naftayda xitaa waxaan ka ilaaliyaa inaan xasuusiyo magaaladii aan ku noolaa tusaale markaan ku soo qaato waxa aan ugu xasuusta badnaa wax la koobi kara ma ahayn magaaladii aan ku noolaa ayaan gawaarina loo kaga qaad maalin kamid maalmaha waa abidkii maalintii aan isleeyahay horta Ilaahay waa ka rajeynaa soo dib dambe ay tusin waxa soo kale laakiin waxaan isleeyahay maalintii maalmaha nolosha ii soo maray iigu murugta badnayd kamid ah beelihii in la soo nabaday al rabaa dagaalka waa socdaa in yaro dhig joojin yara la hela jidadka la soo mari karo koox aniga aan kamid ah oo hal hayb ah ayaa gawaarina loo kaga soo qaaday magaaladii aan joogno magaalada aan ka tagayna haybta kala degan waa ku dhax noolayn waa ku shaqaynaynay waa ka ixtiraamnayn macna fara badan baan ilaa hadda ilaa maalintaas ba ku lahayn laakiin dhacdada darteed gawaarina loo kaga soo qaaday anaga la waardiyayna waxa leeyahay xadka la dhaafay dhibaatooyinka aan arkay aan aadka uga murugooday kamid ah waxaan xusuustaa markii aan tagnay dhacdadii meeshii tagnay dagaalka xogaa la qaboojiyay oo baashay la kala dhax galay nabadeyntii bilaabatay dadkii inaan la hadalno bilaabatay ayaa waxaan wareysanaa dadkii deganaa deegaanka qolo dagaalamaysa laba cirifii ka kala yimaado meesha oo ku dagaalameen dadkii deegaanka deganaa ayaan la fariisan hadaladii aan xusuusteedii ka go'ay waxa kamid ahaa hooyo waxay tiri wiil 30 jir ayaan qolada gediga ka dagaalamaysa u dhalay mid 23 jirna qolada gediga kala ka dagaalamaysan u dhalay labadoodii ninba safka tolkiisu ku jira aniguna magaalada bartamaheedaan meherad ku leeyahay bitir rasaasta labadeeda wiil iyo qoomka ee la kala socdaan is dhaafsanayaan way dul marayaan xabaar kadib waxaan ku qasbanahay jir in aan wacaan hooyo ma nabad qabtaa kana wacaan hooyo ma nabad qabtaa ayageena way isku cayaano mid markaan teleefankiisa weydiiyay kii kale markaan wareysto xulay hooyo ana la hadlay waa nabad qaba bal dadka musiibada haysata arag xusuusii aan meesha ka soo qaadnay ay aniga iyo rag badan oo ila socday oo markii naga la qayb qaatay hawsha ay kamid ahayd waxa kamid ahayd wiil dhalinyaro ah
ayaan la casriyeynay markii xogaa jawgu degay oo aan qaybtii koowaad wada hadallada bilbilow af bilowga la dhameeyay dad fara badan baa ka qayb qaatay aad aan uga amaanay runtii inay dadaal badan muujiyaan meeshii marka ninka dhalinyarada aan la casriyeynay la sheekaysanay wuxuu yiri nin saaxiibkay oo gadiga shakadaas nooga sheekay nin saaxiibkay oo gadiga kala jooga oo aan aadna saaxiib u nahay baa guursanay yiri marka wuxuu yiri carwo kuleeyahay asagoo halkan carwadeedii baan waxaan uga raray yiri agabkii oo guriga ku goglan lahaa jodariyaashii iyo shumacadii waxyaabo la midka dabeetana wuxuu yiri ninkii markaan u raray alaabtii u diyaariyay see loo qaada su'aal bay noqotay anigii haddaan halka aada waa la dilaya asagii hadduu soo aadana waa la dilaya cid dhaxdhaxaad oo geey kartana lama arko marka waa wacay waxaan iri urniyo saasa jirta saan yaala markaas uu yiri aniga ciidan soo kaxaysanay waa soo doona markaas ka fakaray in fidna ka badan ka iman karto markaas aan iri joog halkaaga hor aniga bal si u xeeladaynay wuxuu yiri adiga inta xadka imaad soo dhaweysid bal waa hal tuulo oo xad loo kala sameeyay soo dhaweey xadka markaad imaatid ana ka halkaas aan kala wareegaynaa waxaan isiri yiri qolada aad xadka geynayso soo halis kala ka iman karto iska daadana dhinac walba markii ka qataartay hawshay ayaan gabdho wargaliyo yiri marka gabdhihii baa yimid maadaama dumarka de target gooniyaysa marka ahayn gabdhihii baa alaabta qaaday mashaakilka meeshaas yaala bal qisasku marka wax u fara badan oo nin aabba ah oo laba wiil oo dhala ku waayay waa la sheekaysan asagana qisiis aad buu xanuun badnay waxyaabaha noocaas marka dhacay nin baa ka sheekeeyay asaguna dagaalka inuu ku arkay wuxuu yiri qoray mid kamid dagaaladii aan ayada nabadeynta u tagay bay ahayd qoray yaala meel ayaan soo qaadamaanay buu marka gacan go'aana ku jirtay binaad waxyaabo adigu iska xoga xanuun badan ayay horta u badnaayeen ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ummadda ka dulqaado culayskaas fahamkooda saxiixana ilaahay u soo celiyo waxa ay ku dagaalamayaan hal qof oo taqaan lama arko waa kugu dhimay iyo ka dhimay la sheegi jiray damarka uu ku haraatay ma maqli jirtay musiiba dadka iska haysan qofka ما حتى فهم صحيح أو وعي جاء أنت له مي ولا وراري بان قف شرحي كره تجري حاس كويس تامر كل قولي قولي ستة دبعتة أو توجع أيام حنكو هذا إيشك هيست مركب وإلا حتى حن سلاي هاي هذي فهم كسؤال لابتو وعي قلنتوا أنا ما يبدناته تحتاجون بدناده وأنا ضياشة إن دجال كلا جاي أنا يجوا غيب كين كلي أنا لودين بعشة علماء قشة اللي يرى وحبرات قشة هوانكم قالوا النبضين تلقوا دالو وأنت بدن دتك إسرائيل دتك اسمه النعبة ما فاهم إزاي أنت أنا ما صعدة أما سفرية جوري كستو أما مالك كستو دقيقة والبون تقوم ده الصحمة جفت أن كسر جدا كلي إن تقدر دقنتها صحمة مركب عفيرسا صومالي اسمه النعبة وحان قبائل كأن مثلا لو هرنا أيوة قبيلة اللي قش غينا أينا وفايرس ما هنا دتك واحدة بعتها ويراتي ما يزت شلون